رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت. وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. فراشة بكل فخر، بالورد بالندى التقيت. فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت. فراشة بكل فخر، بالورد بالندى التقيت. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada channelkeyga iyo video cusub. maantay waxaan rabaa insha allah in aan bilaabo videoyaal oo taxano noqonayo oona ka hadli doono sidee u noqon kartaa the best parent ama ugu korin kartaa ciyaalkaaga the best way. maantay waxaan insha allah ka hadlayaa muhiimada ee leedahay in aad leedahay plan ama aad ogtahay sida aad cunugaaga u korinaysid, in cunugaaga u shaqeynayso ama oo adiga kula tahay cunugeyga hadaa sidaan u koriyo den hadhowdi markuu weynaado saas iyo saas iyo saasuu noqonaya which aniga rabo. marka taasi ku fiican tahay also hadaa oo ogtahay cunugaas sida u korinaysid inay oo cunugaaga u shaqeynayso and then uu gaarayo waxa aad rabtid futureka inuu gaaro, then waxaa yaraanayso maxaa la dhihi jiray chanceska in oo dadka kale ay lug ku yeeshaan cunugaaga korintiisa ama camal advice unnecessary advice inay ku siiyaan. For example, haddii oo adiga aadan plan haysanin, aadan aqoonin in oo weyga ah cunugaaga u korinaysid inay saxsan tahay, waxaa easy noqonayso inay dadka ku influence gareeyaan cunugaaga inaa weygaas u korisid oo aadan ogeyn hadhowda cunuga muxuu u keeni karaa. liano wey qaarkooda cunuga wuxuu u keeni karaa trauma u keeni karaa markuu weynaado, maxaa la dhihi jiray emotionkiisa inuu oo control gareenin uu u keeni karaa, waxyaalo damage badan uu keeni karaa. Example cayaalka la dilo way ku fududaadaan and then maxaa la dhihi jiray caadiya u noqotaa inuu qof oo camal hadduu qof wax ku sameeyo camal caadi u arkayaan, they don't know inuu waxaas u qalad yahay. ayagana hadhowda markay weynaadaan dadka ayaga ka xoog badan yihiin way dilayaan, cayaalkoodana sidaasoo kale the same way u korinayaan. dilka iyo qeylada iyo waxaasoo dhan cunuga damage weyn u keeni karaa. marka adiga hadaadan aqoonin cunugaaga sida u korinaysid inay sida wanaagsan tahay, then waxaa easy ku noqonayso cunugaaga markii oo qof kale uu arko cunugiio oonayo. insha allah waa ka hadli doonaa liano cayaalka sometimes oo hinta iyo waxa u keeno wax need u baahan yihiin waaye. marka haddii aadan aqoonin hadhowda qof kale markuu ku dhaho oo cunugan waxaad bartay maanta dhan in aad qaado ama maanta dhan in maxaa la dhihi jiray isheeg adiga leh oo attentionkaaga uu rabaa, which is no wax xun, laakini maxaa la dhihi jiray isheeg dadka more waxaase ku leeyihiin, adigana waxay keenaysaa in aad cunugii ama dishid ama aad ku qaylisid. maxaa la dhihi jiray marka taas ay kaa badbaadinaysaa in anyone oo advice ku siiya inaa iska qaadatid, liano adiga ma haysatid plan, ma haysatid wax aa ku qanacsan tahay, taasaana ku keenayso. so marka haddaad noqotid waalidka ugu wanaagsan waxaa noqonaysaa waalid oo raadiyo okay cunugeyga waxaasuu sameeyaa, muxuu u sameeyaa, maxaa la dhihi jira maxaa
like needsku u baahan yahay maxaa waaye maxaa la dhihi jiray scientifically maxaa cunugan u keenayso ama developmentally muu waxaas u sameynoyaa like waxaas dhanaa raadinaysa laakiin haddaadan oo like waxaas dhan wax kaa galin then every time oo maxaa la dhihi jiray cunugaaga uu ooyo ama maxaa la dhihi jiray isheeg oo like emotionkiis uu ceshan kareen maxaa la dhihi jiray isheeg like waa dilaysa ama waa ku qaylinaysa ama time outa siinaysa so marka haddii aa ogtahay saas ku fiicanta haddaad oo waalid oo ka fikirayo futureka cunugiisa emotionally inuu oo maxaa la dhihi jiray ka koro maxaa la dhihi jiray isheeg responsible qof inuu noqdo qof independent inuu noqdo haddaad ka fikiraysid then maxaa la dhihi jiray anything oo dadka iskaga kaa sheegaan ma iska qaadanaysid saasay ku wanaagsan tahay marka insha allah intaa kusoo ekeenayaa videogan videoga soo socda insha allah waxaa ka hadleynaa in aad fahantid adiga sida aad wax u korisid like intee ka keentay insha allah videoga soo socdaa ka hadli doonaa intaa ku ekeenaa videogan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa rajeynaya in aad wax ka faa'iideen